waxaa si rasmi ah loo dhagax dhigay dhismaha jaamacatul qur'aan alcadiim. dhagaxdhigan ayaa noqonaya kii labaad waxaana markii hore la dhagax dhigay diirka jaamacadda iyo masaajid weyn oo dhismihiisa qaadatay shirkadda Telesom. waxaana munaasabadii lagu dhagax dhigay ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland Cabdirasaaq Xuseen Albani, gudoomiyaha rugta ganacsiga guddiga gacanta ku haysta dhismaha jaamacatul qur'aan alcadiim ee uu hogaaminayay Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Aadan Siiro. horeyna halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga jaamacatul qur'aan alcadiim Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Aadan Siiro. Bismillaahi rabbil aalamiin. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan maanta waxaynu iskugu nimid inaynu dhagax dhigno dhismihii jaamacadda oo runtii ay dhisi doonaan kambaniga Daryeel Construction Company. ummadda reer Somaliland iyo ummadda muslimiinta ah ee afka Soomaaliga ku hadasha iyo dadka geeska Afrika ku nool ee muslimiinta ah ayaa jaamacadan loogu talagalay. waa jaamacad aan isleenahay quraanka loogu gargaaro Somaliland maadaama tawxiidku iyo ha noqoto fufkii quraanka ee runtii lagu nooleeyay dalka oo dhan. waxaan halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga gudoomiyaha shirkadda Daryeel oo fulinaysa dhismaha jaamacadda iyo Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah guddiga jaamacadda. waa maalin lagu dadaalayo oo jaamacatul qur'aan la dhagax dhigayo oo u adeegi doona diinta. jaamacaddaas oo runtii u furan dhammaan ummadda muslimiinta inay wax ku bartaan oo aan laga xigin. marka waxaan ku boorinayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan inta Soomaaliya ku hadasha iyo dadka ilaahay nasiibka u siiyay ee reer Somaliland inay maanta jaamacadda la dhagax dhigayo ka qayb qaataan u dadaalaan si aynu uga faa'iideysano waqtiga. waa maalin aad u qurux badan oo la dhagax dhigayo jaamacadda quraanka kariimka oo insha Allah aynu rajeynayno inay buuxin doonto kaalin ka banaanayd dhulka afka Soomaaliga laga hadlo oo dhan. shirkadahan anagu waxaanu ballan qaadaynaa inaanu insha Allah mashruuca u dhamayno sidii loogu heshiiyay iyo waqtigii lagu heshiiyay. waxaan ku faraxsanahay in kitaabkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala maqarkiisii iyo halkii loo gogol dhigi lahaa aynu maanta seeska u dhigno oo dhagax dhigno. muxsanka dhulka bixiyay salka u dhigay inta ka qayb qaadanaysa ee dhaqaalaha bixinaysa inta wada ee habeenaya maalin soo jeeda ee ka fikiraysa oo gududan iyo boorkan runtii ay maatika u ka yihiin dhammaantoodba Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu uga baryaynaa inuu subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka u saaro. ugu dambeynna waxaa munaasabadani ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani. waxaa ay isu xil saareen boorkan jaamacaddu inay ka taagaan magaaladan Hargeysa caasimadda Somaliland. jaamacad u noqotaa geeska Afrika jaamacaddii ugu weyneyd ee lagu barto quraanka kariimka ah iyo culumtiisa. marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka reer Somaliland gaar ahaan iyo shucuubta kale ee muslimiinta ahba in ay jaamacaddan ka soo qayb galaan ku bixiyaan si aynu u taagno sarxiga weyn ama aynu u taagno yacni dhismaha weyn oo aynu qur'aankii kariimka ahaa u baahino oo maanta loogu baahi badan yahay. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.